رمضان wanaagsan saaxiibayaal idaacada kulmiye muqdisho ayaad nagala socotaan waxaan ku bilaabayaa magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya goordhow waxaa la xaqiijiyay in garoonka magaaladaas ay Jomo Kenyatta la yiraahdo waxaa ku xayiran gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir waxaa sidoo kale sheegay in xubno kale oo baarlamaanka maamulkaasi ka tirsan ay suurtagal tahay inay ku jiraan dadka xayiran dib ayaa loogu soo celin doonaa magaalada Muqdisho sida goordhow waxda socdaalka Kenya ay xaqiijiyeen waxaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya maanta ay shaacisay warbaahinta gudaha waddankaasina caawa ay qorayaan in la qabtay sarkaal sare oo ka tirsan taliska ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya kaasoo ka soo ambabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya sidoo kalena ku sii jeeday magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya waxa ay dawladdu Kenya sheegtay in ninkaas ay ku qabatay lacag dhan 1.7 milyan oo dollar oo micnaheedu yahay 1,700,000 oo dollar waa lacag ku dhow 2 milyan waxa ay Kenya sidoo kale sheegtay in sarkaalkan uu ka mid yahay qoyska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lagu daabacay warbaahinta gudaha waddanka Kenya sidoo kalena ay qoreen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ma jirto wax magac ah ama xil ah oo ay dawladda Kenya sheegtay oo xaqiijinaya in ninkan uu ka mid yahay mas'uuliyiinta Soomaaliya sidoo kale ma jirto cid ka madax bannaan Kenya oo xaqiijin karta in warkaasi uu run yahay wariyaha idaacada kulmiye ee waddanka Kenya Maslax Abuukar Xaaji ayaa iga warramay wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda labada dal gaar ahaan qalalaasaha ka jira Kenya aad iyo aad u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyay ee qaar ka tirsan warbaahinta ee dalka Kenya ay hadal hayeen ayaa waxa ay tahay in garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee lagu qabtay lacag gaaraysa 1.7 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ay sheegtay in lacagtaasi uu watay mas'uul ka tirsan sirdoonka Soomaaliya si weyn ugu dhow qoyska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay wasaaradda hadalka u dhigtay isla markaana warbaahinta dalka Kenya ay u tabinayaan lacagtan ayaa waxa ay tahay mid aan toos uga imaanin magaalada Muqdisho isla markaana waxa la sheegay mas'uulkii watay inuu la soo maray Addis Ababa isla markaana dalka Kenya la soo galiyay Kenya magaca ma aysan sheegin shakhsiga lagu qabtay ee mas'uulka sidoo kale ma aysan soo bandhigin waxyaabaha lacagta ay ku jirtay iyo waliba lacagtii oo sawiran laakiin waxa ay shaaciyeen in lacagtaasi gacanta ay ku dhigeen maalmihii ugu dambeeyay Kenya way qoraysay wararka ku saabsan Soomaaliya gaar ahaan dad ay ku tilmaamtay in qoys dhow leeyihiin madaxweyne Farmaajo aad wax uga qorayeen kuwaasoo intooda badan been aha ma jirtaa ila ka madax bannaan Kenya oo xaqiijin kara in sarkaal nisa ka tirsan la qabtay oo qoyska Farmaajona ku dhow markaad fiiriso warbaahinta Kenya ay ku egtahay iyo sheegashada wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya laakiin markaad fiiriso dhanka kale waxaad moodaa in gabi ahaanba arintan wax ka madax bannaan aysan jirin isla markaana waxa inta badan lagu hadal hayaa oo kaliya baraha bulshada waxa dad badan oo arrimaha diblomaasiyadda ku takhasusay oo Soomaaliyeed ay sheegayaan haddii dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay lacag geliso dawladda Kenya gudaheeda ama magaalada Nairobi in dawladda Soomaaliya ay u mari karto in hab diblomaasiyadeed u geliso tusaalahaan in magaca safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya tarsan inta lagu soo qoro baagag ama boorsad lagu soo shubo isla markaana dawladda Kenya aysan awood u lahaan karin xiligaas inay baarto boorsadaasi laakiin lacagtan siday dabcan Kenya shaacisay hab diblomaasiyadeed kuma socon oo shakhsigaas ayaa watay lama dhihi karo marka koowaad ay leeyihiin dadka ku takhasusay arrimaha diblomaasiyadda waa lacag ay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya way dhici kartaa inuu shakhsi leeyahay lacagta laakiin ilaa iminka ila ka madax bannaan ma jiraan laakiin sheegashada Kenya waa ay jirtaa oo inay xaqiijiyeen in lacagahaasi ay gacanta ku dhigeen marka waxa la isla xiriirinayaa lacagtaas la qabtay iyo amarkii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ku saabsanaa in boorso aan cidii leed la socon aan laga soo dejin karin magaalada Nairobi iyo guud ahaanba garoomada dalka Kenya taasi oo Kenya ay sheegtay inay u aragto in qalqal oo dhinaca ammaanka ah uu soo wajihi karo dawladda Kenya haddii boorsooyinkaasi la soo geliyo gudaha dalkeeda marka ma jirta saraakiisha Soomaaliya gaar ahaan safaaradda Nairobi wax aad kala xiriirtay arrintan oo aad su'aalo ka weydiisay safaaradda Soomaaliya laakiin intooda badan waa ay ka gaabsadeen in arrimahaas ay ka hadlaan iyagoo sheegay in maadaama safaaradda hadda wax
caqabada aysan haysan oo gaar ahaan ku saabsan in iyagu ay wax problem ah qabaan waxay sheegeen qaarkood in aysan ka hadli karin arrimahaasi laakiin dhinaca kale waxay caawa jira isla caawadana hadlayno oo baraha bulshada inta badan lagu baahiyay oo ku saabsan in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug caawa ay ku xayiran yihiin garoonka diyuuradaha Jomo Kenyatta magacyadooda inaan helno ma suuragelin laakiin waxa inta badan baraha bulshada lagu hadalhayaa in mas'uuliyiintaasi ay ku xayiran yihiin Jomo Kenyatta birina dawladda Kenya ay qorsheynayso in magaalada Muqdisho ay ku soo celiso ugu dambeyn maslax maalmihii ugu dambeeyay xiisada labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ma wanaagsana waxaa jira warar badan oo la qorayo warbaahinta Kenya ay qorayeen oo 90% aan sax ahayn marka warbaahinta Kenya iyo sidii u tabinaysa iga waran xiisada labada dal u dhaxayso markaad fiiriso warbaahinta gudaha Kenya siyaabo kala duwan ay u dhigayaan kuwooda ugu afka dheer markaan soo qaato waxa ay sameynayaan ciwaano qaarkood ay ku tifaacayaan dawladda Kenya qaarkoodna waxa su'aalo ay ku weydiinayaan dawladooda oo Soomaaliya ay su'aalo ku weydiinayaan qolaaradii ugu dambeeyay ee si weyn loo hadalay waxa kamid ahay in Kenya ay ku guul dareysan karto dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca badda la xiriirta sidoo kale idaacadaha Kenya ee caanka ah waxay qabanayaan doodo ku saabsan Kenya iyo Soomaaliya xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa cidda qaldan cidda saxan iyo cidda ku guuleysan karta qaarkood dadka siyaasiyiinta ah ee aqoonta durugsan u leh arrimaha diblomaasiyadda waxay sheegayaan in dawladda Kenya ay guul dareysan karto haddii cadaadiskan ay sii wado iyo haddii kalaba qaarkoodna waxay taageerayaan dawladda Kenya oo waxay leeyihiin dawladda Kenya waa ay ku saxan tahay maxaa yeelay Soomaaliya abaal badan ay u gashay Soomaaliyana maanta ma ahayn in ay sheegato bad ay leedahay dawladda Kenya sida ay hadalka u dhigayaan marka siyaabo kala duwan ay u tabinayaan warbaahinta Kenya iyadoo ay xisud mudan tahay in Kenya arrimaha media ama warbaahinta ay yihiin kuwa xor ah oo aragtidooda si xor ah u cabira oo marka loo eego Soomaaliya ka duwan siyaabo kala duwan ay wax u tabin karaan siyaasiga weyn ee Faarax Macalin walaac muujiyo wuxuu yiri Kenya waxay ku soo laabataa Soomaalida gudaha dalkaas degan markastoo ay Soomaaliya xiisada kala dhaxaysa ay xumaato ama xiriirku xumaado marka Faarax maxaa walaac muujiyo Faarax Macalin hadalkiisa ayaa waxa uu ku yimaaday iyadoo garyaqaanka gaarka ah ama lawyerka gaarka ah ee madaxweyne Uhuru Kenyatta Mudane Axmed Naasir bartiisa Twitterka uu ku soo qoray in Kenya ay qorsheynayso inay si gaar ah u beegsato qaar ka tirsan qabiilada Soomaalida taasoo ula jeeday inay ka dhalan karto xiriirka dhinaca badda ah ee muranka uu ka taagan yahay ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya Faarax Macalin ayaa saacado kadib isna waxa uu soo qoray in mar walba ay isqabsadaan Kenya iyo Soomaaliya Kenya ay si gaar ah u beegsato Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya oo uu sheegay inaysan u arkeenin dad Kenyana marka inta badan Faarax Macalin waxa uu dhaliilaa habka siyaasadda ee dawladda madaxweyne Uhuru Kenyatta isagoo sheega in Soomaalida mar walba la midabta kooro gobolka Soomaalida ay degto uu yahay gobolka ugu horumarka liita marka loo fiiriyo dhaqaale fara badan ayaa lagu cunaa gobolada kale sida uu sheegayo marka wuxuu leeyahay dawladda mar walba maxaa keena Soomaaliya iyo Kenya markay isqabsadaan in Kenya ay ku soo laabato Soomaalida Kenya oo si gaar ah ay u beegsato inkastoo dawladda aysan ka hadlin haddana aragtidiisa ayuu ku cabiray isna bartiisa Twitterka maslax Abuukar Xaaji oo dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi soo ku sugan telefoonka igu waramayay ayuu kaasiyaha saaxiibayaal